Hello. Cashirkan waa cashirkeeni noo socda oo ahaa learn how to use window Powershell ISE command. Waa cashirkii soddon iyo saddexaad weeyaan. Cashirkii soddon iyo saddexaad maanta wuxuu ka saabsan yahay waxa la yiraahdo escape character. Escape character waxay ka mid tahay Powershell command, Powershell ISE command character-ka oo script-ka lagu qoro ayay ka mid tahay escape character. Marka haddaba muxuu yahay what is escape character? Marka escape character muxuu yahay? Haddaba anoo aan ku dheeraan escape character waxa uu yahay waxaan rabaa inaan kugu tuso meeshan escape character-ka. Haddii aan marka hore ugu horeyso aan furto Powershell-ka la soo baxaya. Powershell-ka markaan la soo baxo marka ugu horeyso Powershell-ka la soo baxaya oo share gareena screen-ka. Powershell-ka markaan la soo baxo soo arkaysaan waxaan rabaa caawa inaan ka hadalno cashir kale oo la yiraahdo escape character. Soo arkaysaan marka escape character-ka waxyaalo badan loo isticmaalaa. Waxaan ka soo qaadanaynaa tusaalo hal iyo ama labo tusaale aan ka soo qaadanaynaa anoo aan ku dheeraanayn. Marka ugu horeyso qaybtan ayaa xoogaa weyneynayaa. Soo aragtaan wax yar ayaan weyneynayaa. Markaan weyneeyo markaan weyneeyo halkaas waxaan ku qorayaa wax la yiraahdo escape character waxyaalaha ugu saabsan. Halkaas wanka waxaan taabanayaa writing house markaan taabto intaan dhahayaa haddana sidoo kale writing host aan leeyahay. Sidoo kale writing host aan dhahayaa writing host aan taabanaya haddana writing host aan taabanaya writing host ayaan dhahayaa. Intan ayaan taabanaya haddana waxaan leeyahay writing host. Okay, writing hostkaas markaan saas u taabto qaybtan lixaad space ayaan siinayaa. Waxaan dhahayaa intan ayaan taabanaya haddana waxaan qorayaa wax la yiraahdo writing host. Intan ayaan taabanaya haddana waxaan qorayaa writing host ayaan dhahayaa. Intan ayaan taabanaya writing host. Halkaa markaan saas u taabto oo space-ka aan siiyo waxaan leeyahay writing host-ka halkaa ay ku qoran tahay script ama run ayaan halmar taabanayaa. Run aan leeyahay. Markaan writing host-ka taabto halkaas qaladka waxaan leeyahay halkaan ugu horeyso CLC aan ku dhigayaa raaliga noqda. Halkaas ayaan ku qorayaa writing host-ka. Markaan ku qoro waa highlight gareynayaa kulli markaan saas u highlight gareeyo halkaas aan leeyahay run aan leeyahay ay ku qoran tahay. waa arkaysaa run escape character saasaa laga wadaa. Waxyaalo badan aan escape gareeyay. Halkaa waxaan ku qoray heyda waa aragtaa intii space u dhexeysa waa aragtaa. Tan labaad ku dheeraa maaya hadda waxaan leeyahay halkaas haddaan dhaho waxaan leeyahay aan tirtiro halkaas aan ku qoro writing host aan dhaho. Writing hostkaas markaan dhaho waxaan leeyahay calaamadda oo writing hostka calaamadan aan baxsanayaa. Waxaan leeyahay calaamadda markaan baxsado waxaan leeyahay halkaas waxaan ku taab gareynayaa calaamad kale oo writing hostka ah. Writing host 7 mar aan dhigayaa inta 7 mar 1 2 3 7 mar ayaan dhigayaa. Markaan dhigo waxaan leeyahay command siinayaa. Kabacdi waxaan leeyahay haddana comma kale aan bixinayaa. Halkaas haddana comma waxaan leeyahay haddana n comma n halkaas hal xabaan ku daray n intaas. Halkaas markaan saas wada siiyo 1 2 3 7 mar markaan saas u siiyo u waxeeyo waa highlight gareynaya gebigeeda waa highlight gareynaya. Markaan highlight gareeyo halkaas aan leeyahay run script waa arkaysaan sidoo kale. Marka
run script marka aan taabto saan u sheegabo escape character-ka waa characterada loo isticmaalo markii la qoraayo script-ka oo la isticmaalayo window PowerShell ISE command. Haddaba halkaa arkaysaan haddaan ku laabto aan dhaho tab aan dhaho T waxaan leeyahay calaamadii T 3 mar aan dhigto ama 4 mar haddana T aan dhaho calaamad kale T aan dhaho sidoo kale aan dhaho run script aan dhaho waa arkaysaan sidoo kale run script markaan dhaho arkaysaa calaamadaasi u soo baxdo marna hay'adu waxay joogtaa kor marna waxay joogtaa hoos ayay joogtaa anoo aan isticmaalay cashir aan ka soo hadlay ama character aan ka soo hadlay casharada la soo dhaafay oo ah tab ama escape-ka ah marka haddaba saas ayaa loo isticmaalaa running host-ka ama markaa isticmaalaysid tab oo script-ka u samaynaysid cashirkan waa cashirkii 33 weeyaan haddii aad galaaskan ku cusub tahay ama aad galaaskan aad ka heshay ama aad rabtid inaad noqotid qof qoro script-ka adoo isticmaalaya window PowerShell ISE command marka ugu horeyso like-ta taabo subscribe-ka noo saar comment ka bixi comment-kaada waa noo muhiim waa inoo cashirkeena dambe